الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد daawadayaal waxaan falanqeyn doonaa diyaaradaha lagu arkay dul heebaabaya magaalada berbera oo habeenimada xalay magaaladii laga seexan waayay dad diyaaradahaasi maxay yihiin meelaha qaar dadka qaar baa waxa ay sheegayaan in xitaa lagu arkay diyaarad drones ah oo ku soo dhacay sidii kuwii maan loo tusin oo kale waan falanqeyn doonaa habar jeclo oo iyadana diidan in kursiga Salebaan Maxamuud Aadan in kursigaas la dhaafiyo ninkii lagu magacaabay Salebaan Gal inkastoo magacaasa uu diidan yahay waxaan kaloo falanqeyn doonaa magaalada Boosaaso dekedii oo weli xiran shacabka inta isku diyaariyay mudaharaad loo diiday inay soo baxaan idan dul istaagi doonaa Puntland iyo waxyaabaha ka taagan waan falanqeyn doonaa muuqaal kale wadaaga saaxiibada barnaamijka waxa weeye saaxiibkay goyn la falanqeyn doona goyn soo dhaweena marka hore magaalada Berbera habeenimo xal lagama seexan mariyo diyaaradaha lagu arkay meelaha qaar xitaa drone soo dhacda markaan lagu arkay cabsi badan baa halkaas yaa ka taagan idaanoo maasan tahay horta magaalada Berbera ilaa Bulaxar intuu dhaxayso dhul aan laga nasanin oo ka noqdo maalmo la soo dhaafay dadka qaar waxay dhahaan waan ka barakacina meeshan maxay noqotay furun dagaal ay noqotay diyaaradaha dul maray xalay oo meesha dul maray way badnaayeen laakiin hal diyaarad loo maleeyay inay tijaabo ahaan la isku qarxiso meesha sax marka duqeyntii wili way taaganta Cabdiraxmaan Ciran wax jawaab kama bixin Somaliland way qarisay in duqeymaas ay jiraan yar sargaal oo iga soo wacay meesha la yiraahdo Hargeysa wuxuu ugu dhahay maxay wax duqeey Mareykan ahay kulaha Mareykan ahaayeen marka maadaama Mareykanka argagixisa meesha uga shaqeeyaan kulaha waxaan ku yiri Bulaxar intuu dhaxaysay Berbera argagixisada imaanaysa maxay haye mid kale wuxuu yiraahday ninka abwaanka ah oo ka tagi jiray Somaliland uu xiran shabaabka xirtay nagay hadee waxay ku xireen waa la isqabsanaan lawey ilaa hadda dood ay taagan tahay shabaabku waxay dhaheen waratan annaga hadan diin aan wadnay xaggaas nimankii waaweynaa imaadeen hal gaarsiiyay kun waa ku yareeraaba xaggaas ku waaweynaa jooga xagga aan tagno kun waxay dhaheen maya halkan ayaa ka haboono tan aan meesha halkan ku socoto marka asaga iska hormaado marka aan sunnay ragiisana in lagu daray noqonay marba hadii baashi hadee xasab noqona marka iyo gamaadid iyo rag dhanba in la xiriir noqonaysa xaaladda marka aad ay u cakiran tahay dadka halkaas joogan waxay leeyihiin habeen walba ma seexano awal dhulka shabaabka ay xukumaan habeen walba lagama seexan jirin diyaaradaha dul wareegay dadku waa cabsi kal orada ku jiri jireen hadda dhankaana way maraysaa maxaa la yiraahdaa Bulaxar iyo inta u dhaxaysay Berbera ayaa dadku aysan seexanin marka Cabdiraxmaan Ciro duqeyntii inay jirto ogyahay asagana dhul uu diyaarsado mar hore dhulkiisu isaga xaroonaya wax dan oo ka leeyahay dadka aan la duqeey in kala midna mara marka xaaladda Somaliland waa iska cakiran tahay dadku way la yaaban yihiin duqeymahan dulba ayadoo nimanka soo degin mid hadlayo oo qoraa ah wuxuu yiraahday warnamanka meeshaas Covid ma imaan karto yirniyo Covid ayada cadow samaysatay adduunka dhan maxaa la yiraahdaa ay cadow ku leedahay sida daraadid meesha intay tagto iskuma aaminayso yir marka hadalkaas mar qaarna macquul ku ah meeshan ay wixii aan dhul iyo dad banaga joogaba saasi ku imaanayaan ba ana dad naga joogay leeyin ninka had koor de wixii boqol soo sheegay wuxuu dhahay 10 qof bal 2 qof aan ku leenahay wala abuurtaa marka xaaladda halkaas ka jirto aad u cakiran tahay duqeymahan oo sii kordhayaan Cabdiraxmaan Ciran waa aamusan yahay dadkuna waxay isweydiinayaan sababta Somaliland u qarinayso duqeymaha iyo diyaaradahan dul maray halkaas sababta mar walba ay soo warbaahinta ula wadaageen wala la yaabeen mid kale Cabdiraxmaan Ciran waxa la hadlay muddo isbuuc oo isqariib banaanka uma soo baxo ma hadlo saxaafadda meesha way tagtaa inay wareys ka qaadeertaa ma ogolo ma lama garanayo wuxuu qabanayo sax marka dadka Soomaaliyeed waqooyiga xaaladdu way ku adagtahay kursigii Salebaan Maxamuud Aadan waa la isku haystaa oo kursiga ninkan ka degay buu yiri inkastoo culays badan uu la kulmay cadaadis badan la saaray hadda ugu dambeyn wuxuu yiri inuu kursigan igala wareega muddo dheer baa soo hayay ma isaas horta Salebaan Maxamuud Aadan kursigan waa run muddo ku fadhiyay siyaasaddan 33 sano ka badan ku jira oo wasiirka arrimaha gudaha ugu horeeyay Soomaaliland markay dhahday go'aan istaag bilowday ninka ugu horeeyay wasiir ka noqdo oo ahaa asaga ah 91 ilaa 93 wasiirku wuxuu ahaa arrimaha gudaha marka siyaasadda intaas ku soo dhex jiray Salebaan Gal dadkuna waxay isweydiinayaan habar jeclo kursigan waa wiligeed ku fadhisay yaa bedelay oo hadda waxa arkay burca maanta ayuu ka hadlayo dhahayo war ninkaas anaga cid noo bedeshaan rabnaa oo booska sida asaga u saarnay oo kale inaan u saarnaa rabnaa oo mar walba dhaco xukuumadda isbedesho saarnaado qof saasay raadinayaan ninkaana de markaan ooldi waa da'wa nin markaa kadib oo waxa waaye nin waxa iska afgaaban oo ahaa laakiin waa mayal adka
afgaabnidii wuxuu ku dirsaday meel adeeg hadduu yidhahdo waxaa ma soconayan ma soconayan haddii maalintii ugu dambeysay wuxuu yidhi xaqol ciid ma jira iskala taga ciiddaa soo doonan jirta idinkaadin runta ku adib maaha runta sheegaas ma yaqaan waxba kuma qaranayo war kuwan dhulbahanteen dhex fadhi maxaa war naga baxa waa isku dhihi jira wada dhihi jira hay naga baxa dhulbahanta meeshiina aad ordaha guryihiina aada niga waxa ma qariyo marka xaaladda halkaas ka jirta aad ay u cakiran tahay dhulbahantaha iyo ciidanka iyo isaaqana was haystaan waxaa laisku haystaa labadaas gari gaariga cabdibalaha lasoo gosato aa laisku haystaa maalin dhowta markay soo galeen waxaa telefoona loo diray waxaa la yihahdaa gaari cabdibala keentaan waxaan siin doonaa $13,000 nimankaa dhulbahante ugaaryahan nimo la dhaha waay labada gaariga markay la goosteen labada asgari ay ooga geeyeen gaariga waa lagala wareega waxaa la yidhi $1,000 idinka magaalada ku joogtina la siina way diideen marka mar badan dhaliin qayle telefoona dirsadeen dhulbahantihii ku jiray somaliland ay u dirsadeen maxaa la yidhahdaa qaldaan nimanka intaas suunulish waa naga baxeen hargeysa ayaga marka loo waday hargeysa marka la geeyey nimanka dhulbahantihii wasiiradii xildhibaanadii waxay la kulmeen cabdiraxmaan ciro ayagoo shir ka socdayba ka baxeenba waa xanaaqeenba raggaas wixii lagula soo heshiiyey hala siiya dhehe haddaan la siinayna de waxa kala soconaya mal marka somaliland dhulbahanta hadda naga baxay oo dhahaysa magaalaada dana u bixi doonaan sababto waa mar ka dambeysa waxyaaba adaga lagu sii adkeenaya meesha ka muuqato midda kale arrimahan hadda ninkan isku casilay horta da'dii ageka waa ka daba imaata markaa kadib ma sii wadi karo xukunka cadays saarnaayo hadda la dhahayo cabdiraxmaan cirra saare ma jiro oo ninkan uga degaayo meesha ma jirto laakiin waa wax binafsi ah oo go'aansaday inuu iskaga tago meeshan maadaama agekii uu soo kordhayo marmarka qaar ninka inuu iskaxiisi baxda dhici karta xataa hadalka uu jiidaya sooma marka xaaladda halkaasay maraysaa beri oo axada ayaana loo malaynaya inuu iska casilo xukunkaas xilkaasi hawar jecla oo banaanbaxyo dhigaysana waxay leeyihin haddaan kursigaas annagana la siin xaalad jaxwareera ka dhici doonto awalba horey u cadhaysanaayeen oo kacdano badanna way wadeen dhankaasi boosaaso iyadana xaalad adag ba ka tagan dekadii waxyaata ilaahay hadda shacabkii inay soo banaan baxaan bay isku dayeen maanta waa loo diiday oo guryahooda la hor istaaga waxaa ligi ma dhaagan kartaan والله horta de halkaas boosaaso waxa ka jiro waa weli nimanka DPWOL haysto DPWOL intay haysatana baasha ma toosayso oo DPWOL meelaha kale waa laga saaray laakiin Puntland qaybo badan ka baxday laakiin qaybo badan weli raad ku leedahay contract ku jirta maxaa la yiraahdaa dekada maamuladeeda waxaa jirta marka lacag qadma la dul saaray dadka ganacsatada oo shirkadda DPWOL dul saartay ganacsatada way diideen 2 isbuuc ka hor ahayd markay diideen waxaa la ilaa bixinaysaa ayagana shaqo joojin ay sameeyeen hadda maalinta 12aad waxaa jirto shaqo joojin wax oo soo dagaya boosaaso aan ma ka baxay midna ma jirto barnaamijka markii inuu sii socon doono u badan tahay siciidana inta go'aan ma keenayo xulay DPWOL saxsan ganacsadii inta la shireen oo xiriir la sameeyeen wax walba isku dayeen xulay waxa saaran amarka DPWOL la shaqeynay ilaa saalkaas wax ka helay moogta ganacsada waxa gooni ka meeli karo marka xaaladda boosaaso saas u cakiran tahay Soomaaliya Puntland oo dhan iska cakiran jahwareer weyn ka jiro sababtoo siyaasadan way qasan tahay ninkii la siciidani wato maanta hadlay wuxuu yiraahday dadkan shaqo abuur loo sameeyo Puntland gaaja ka jirto waxa sare leeyahay dadka inta isku yeerno oo qaarkood seminaarada iyo hay'adaha u shaqeeyaan ee seminaarada ka qayb galaan lacag qaataan iska tagayaan yiri maalinta kale oo seminar jiro hadana soo qoraa marka dadkan annaga naftigeena dhibaa ku qabnaa dhaay lama shaqaaleysan karo waana weerariyeen u dhahay xamulaysa marka warkaas wax badan oo kamid ah inay jiraan oo dad seminaarada bistaga oo lacag qaata jiro xasleeyahay marka Puntland hadda qalaasa ka jiro siyaasadda isru rogaysa iyo xirnaanshaha dekada hadday sii socoto kacdoono badan bilaaban doona Siciid Cabdullaahi Dana xaaladda ku adkaan doonta